waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka wacyiga bulshada ee telefishinka Universal barnaamijku wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya waxaana idila socodsiinaya anigoo ah Cabdi Wali Xuseen Tawakkal wada yar isku dan iyo hadaf ah badankood dhalinyarada maanta haddana mid walba ahi oo midka kale si uu eedeynayo marka aad eegto xagga nolosha balse aan xaqiiqda isugu sheekaynin oo aan dareensanayn inay isku yool yihiin magaalada Nairobi waxay martigelisay kumanaan dhalinyaro Soomaali ah oo siyaabo kala duwan ugu yimid bilowgii hore lahaana hadaf horumarineed ee xagga nolosha balse deegaan ku noqday markii riyooyinkii qaar ay noqon waayeen sidii loo aqal taagayay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka Kenya soo macin biday si la mid ah dhalinyarada kale ee ku nool dalkii hooyo waxa saameeyay nolosha adag ee guurka iyadoo ay u sii dheer tahay nolosha Kenya oo ah mid adag in kasto dhalinyarada qaar ay sheegayaan arrimo badan oo sabab u noqday in dhalinyaro badan ay iska daayaan guurka horto marka hore waa maasan tahay Tawakkalo waa arin fiican maanta u baahan ilis weydiyo anaka hadaan hanay horto dhalinyarada kunol Nairobi horta sababta aad sheegtay arrin badan keenan arrimahaas ay arrin kala duwan waay horta mid u horay gabadh dad qaar waxay isku bartaan internet dadna caadi suuq isku bartaan marka sabab badan keenan sabab waxa kamid ah gabdhaha qaar waxa waay waxay jecel yihiin horta ragga horta lacagta leh ma garanaysaa asbirtiin ama internet ama meel isku biratiin aad hadoo dawladda wax fiican ma haystay waxaan ayaa haystay haddaan isku gursan maxay rabtaa waxay ku dhahayaan maxalli jiray guur hada diyaar u mihiyo ma artay arrimo anada excuse ay sheeganayaan qaarna waxaas dhanba maxay ku dhahaan guur iyo ma artay stresskiis waxaasba ma rabo marka sababaha badan ayaa keenaya ma artay guur la'aantaas mid kale oo macnaha dadka oo guurkooda ka barburayo waxa waay internet imaas guursadon ama reero isku daran ay ku aad isku jecleen so bari kadib biloon kadib maxay noqonaysaa inay ma artay kala tagaan marka waxa la ahaa wiilasha ayaa keenan ma aha gabdha naftooda ay ka tahay aad u fara badan oo tira badan ma rabaan guurkaas harka inay iska baashaalaan oo iska wareeganay jecelyihiin laakiin ana horta ragga horta maxay jir gabdha horta qiil ma siinahay because of ragga ilaahay baa u shidcay ilaa afar isku guursadaan haddii aad awoodi karto waad guursan kartaa marka dumarka ayaga iska misir badin adiga la yaab maanta inaad gabarina adeerta ama ciidina iska ama goyn la sheekaysanayso ay ka misiraan laakiin hadda sanad aan filayo ma ahan taas wax ka jiran ma aha السلام عليكم ورتا وحكم بالله مجيئة وحواء وحند جناها إسلي قارهان تعرفك أنا هرت قارهان دكان لردنا يفتح جيدا وحندي لها ما أنت دايرت أيجا قلدن كوز هاد الجبر نلل عن ربين مديكري ما أنت نلل جبر مربطه قفل بدمر وحولا دل إنه نلل ماري سما نلش صورة بها دنيا يرت أبدا هرت دنيا هاد الدون كان مجرتو وين دماذن وحاسب وحادون كيما شيشد هذه وحياة بدنا بلوت كمية وحاسان قاتك وحاسان العقد قبل كبر ما أنت دينين للشركة مدة أول سعدان وحدة سوالله سيده أما إمارة أما كلا تكنو ويل كدو فهم ما يقبلنا والعقو هنا الدوال كلا تجيا نلش ساسا ويلش سكابل قبلها أنا سكابل ساسا كدكتي أنا عام السنة هاي أنا وحندي لا دم رجع سكله قيب دمر كوكيليهن أدون قرط نلش سيد الله وذاك لما تقف يكون حرنتها كل صدق وشيء قاليا أنا هانت هذا كذا فعلا مو كده عرت نلش أنا كذا فعلا أنا لكن وحكي لها محل جر نلش قف بالآن كاسة عسكله سما بس محل جر هذا نلش إذا قف دان سوى ذاك إلا حريك وقت دمانه وقت يقصير معنا وحنا ودمر أفرت صار وقت دراسة هذا ما ترى ده الصوت يا هدو ديدو وحنا سكان وخلد بروا كتر لابسنا نلش نلوك كلنا هذا متكلم برنا نلش ساسا كسي مرنا رجنا ساسا كبرنا دمر كنا ساسا جوران ودا عيسى بسم الله الرحمن أنا وحلا دا محمد حسين في ذو نيروبي أن كنا لاي سؤال شيء ويدي سادي عن كهجة جوابه أنت عن كفهمي كرو أنا أركتدي دو حيلتها دمر كنيروبي رجع نيروبي وحوا marka hore markii isguursanayaan guurkooda ma ila ahan dhab kaas waxa qurba la jooga dhibaato iska jirto de wax ku meel gaar la yaraa ayay sameeyaan inta badan soo markaa dhibaatada darteed iyo maciishada nolosha iska adag
ayaga waxay samaynayaan guurkii ku degdegaan markii guurka ku degdegaan ay waxay samaynayaan ii sheeg hadhow guurkii markii lagu degdego waxay samaynayaan guurkaasaa waxa uu noqonayaa guur oo iska qaldanoo noqonaya wax interest ma yeelanayo macaishadiina waa iska qaali marka waxa waa dhibaatada taasaa keenaysa dumarka laftigooda waxbay ku leeyihiin oo ragga wuxuusan awoodin ayay dusha u saarayaan marka dhibaatada dumar keliyana lama dhihi karo ragga laftigoodana waxa waa ayaga waxay samaynayaan gabdhaha Soomaaliyeed waxa waagii hore markii oo guurka oo dadka la isguursan jiray sideedaba guri markii la yiraahdo guriga labada ruux buu ku dhaqan yahay marka guriga sidiisaba labada ruux buu ku dhaqan yahay sabar wax la yiraahdo jiro sabar ayaa jiro marka sabarkii meeshii kuma jiro labada qofood waxa la rabaa hal qof inuu sabro ama uu ninka sabro ama uu gabadha ay sabarto soo marka wax sabar la yiraahdo ma jiraan wax yar la isku dhacaya waa la kala tagaya burburka ee u saalan marka dhaqaalaha dhanka dhaqaalahana waxa laga yaabaa wiilka intuu wiilka qaadanayo ama uu maciishadaan oo shaqo u ka helaya gabadha in ka badan ay u baahan tahay because shopping bay rabtaa wax walba rabtaa nolol bay rabtaa soo marka noloshii intii oo wiilka oo heli karay iyo intii gabadha ay u baahneed de ma iswaafaqayaan aniga marka aragtidayda waxaan arkaa maciishada wadanka inay koow ka tahay dhibaatada talabaad ayada laftigeeda gabdhahana waxa way mid bay ayagana koow ka yihiin because waxa guurkooda waxa guur oo wax yar oo mooditaan qofka jaanis yar inta yar oo Nairobi jooga ayaa wuxuu leeyahay aan ishabaysana camal soo marka anu waxaan u arkaa dhibaatada labada dhanba inay ka imaanaysan u arkaa nolosha Nairobi aad ay u adag tahay guriga waa qaali noloshu waa qaali hada gabdhihii waxay rabeen dhar qaali inay gishtaan hada shoppingkooda ma laga bixi karo dhalinyaradiina waxa waa biilkooda iyo wax yar qaataan ama ay commission yar maalin yar soo helaan ma awoodaan inay gabadhii ku dabaraan hada sabarkiina meeshuu ka baxay waxa waa gabadhiina ma sabrayso wiilkii intii yar uu soo helo maalintii 1000 iyo 2000 uu soo helo hadii uu gabadhiisi waxay leedahay maanta waxa looga baahan yahay waxyaabo kale dheeriya sida shopping oo kale hada kirada guriga kale hada waxyaabo kale baashaalkii kale ninkii dhalinyarada marka waxay noqonaysaa inuu markaas uu yiraahdo ornay tan waaba qarashkeeda zaid waaye niyo ma iska fududaysaa ama safaray wax iska soo jiraan wallahi dhibaatada aad bay u badan tahay kulay waa qurbahana waa koobay ka tahay dhibaatada furiinka aad buu ugu batay waayahan dhanka Soomaaliya hadda markii la fiiriyo furiinku ma badno kaas marka dhan la isguursanay nolosha waa la is yaqaanaabo gabadha gurigaana deganta diriska wiilkan dhankaan degaya soo marka waxa waa noloshaas yaraaba la isku rabaabo ma la isfuraayabo laakiin hadda waa la libisan yahay been baa la isku sheegaya kana ii shaqeey dukaan baa ii shaqeey anima kana ka dhacday waxba la sheegaya qab waa la sameeysanaya after 2 weeks 3 weeks waxa dagaal bilaabana kun soo tuur 2 kun soo tuur orsideedaba guri markuu dhisan yahay labada qofood kuma wada dhisno waxa waa hal qoys markuu dhisan yahay hal qof buu ku dhisan yahay ama qofka dumarka sabarkeedu ku dhisan yahay ama ragga sabarkiisu ku dhisan yahay laakiin ma la dhihi karo sabarkii hadii laga tagay guriga waa burbura ninka ragga waxa la rabaa xaaskiisa markii dhibaato u geysto ama ay culays badan dareemo ama qaylo ama wax kiciso waxa la rabaa inaad u sabartid at least hatta ka soo jireysid hal rabaa gabadha sidoo kale markuu ninka waxba uusan haysan waxa la rabaa laftigeeda inay u sabarto marka meeshii sabarkiya ka baxay wax sabar la yiraahdo ma jiraan waxa waa isi aan ku siiyo waa hadii intaas laga waa la kala tagayaa aad u mahadsan tahay magacayga waa Ramla Maxamed Aadan ku nool xaafadda Islii haddaan fikirkaas aniga aan fikirkayga ka hadla arintaas dhalinyarada ku nool Nairobi oo ragga ah ama dhalinyarada ama day ragga Nairobi ku nool eedaas ay u soo jeediyeen dumarka waxaan dhihi karaa maaha sax boqolkiiba 80 waxaan dhihi karaa ragga iskale eeda ayadoo ay laba u kala qaadayo waxay tahay horta ragga ninkii maanta xoogaa dhaqaale yar haysta oo dhaha maxaan rabaa mustaqbal ama raba inuu gabar uu la sameeyo ama uu reer dhiso wuxuu u badan yahay nin reer kala leh ninka reerkii kala lahaana gabdhihii wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaad iqarisid yacni ninkii dhaqaale yar haysta waaye wuxuu leeyahay gabadhii haddii guri degan tahay ama iskaabalo ha ahaato ama reer ha la joogto ama ha deganaato hadal wuxuu uga bilaabayaa waxaan ku siinayaa xoogaagaan ku siinayaa waxaan rabaa inaad iqarisid gabadhii marka ayadii damba ayadiina haysiyo duruuf
sababtoo ah meeshaan gabdhaha inta badan way isaga dhibaataysan yihiin wadankeena burbura ka dhacay gabdhihii meeshaan shaqo fiican kuma haystaan qaarkoodna maba ahanba inay ma shaqaysanayaan oo waxay iska jecel yihiin inay iska jiifaan xillina ay wax iska marsadaan oo daawooyin iyo wax intay waxaas la labistaan inay iska socdaan gabadhii marka asagoo saas uga faa'iideysana iyadoon fursad haysan oo shaqo haysanin oo nolosheediiba reerkoodana kasoo tagtay meeshaan nolol fiican ku haysan hadalku wuxuu uga bilaabaya waxaan rabaa inaad qarisid reer kale aan leeyahay kale gabadhii marka guurkii ninkaas u soo jeediyay asagina daacad kama ahan ayadana daacad kama ahan ayada dan baa haysa asagina wuxuu rabaa inuu maxay ku danaysto rabaa oo waa nin xiise iyo kale wax la mid raadinaya marka guurkii markuu saas ku bilowdo gabadhii ayadoo marka hore uusan guri geynin asagoo qarash fiicanba ku bixinin wuxuu sameeyay inuu gabadhii saas ku guursado guurkii marka saas ku imaaday ma sii daahayo oo ma noqonay guur oo ma taqaana raasamaal leh ayaan hadii gabadhii uu qabo ninkii ileen meel dheerba kama jirtaba oo ninkaanayto waxa asaga qiimo la lahaa reerkiisa hore wixiis inuu ilaalsado rabaa gabadhaana inuu jaranjar uga gudbo rabaayo xiisa u geeyay marka guurkii inuu burburo reerkii dhaqso waxa ku kalifaysa waa marka hore daacad la isku ma soo galin gabadhiina danba haysay jacayl ninkan uma guursan asagina waqti ku mooday burburka koobaad waa kaas wiilasha yararka ku soo haray wiilasha yararka waxa waaye ayagana qayaano gabdhihii naftay u keeneen waxay la sheekaysanayaan 5 gabdhood tan la sheekaysanaa kulli wuxuu leeyahay waa ku jecelahay gabdhihii suusaa isaga daba wareejinayo oo jacayl been ugu abuurayo asaga waxa laga yaabaa inuu laftirkiisiba uusan wax fiican iyo dhaqaale fiican haysanin inuusan isku bixin karin Nairobi nolosheeda gabadhii marka waxa waay suu adigu ultimo gabdhihii suu isaga daba wareejinayo maalinka dambe wuxuu leeyahay waxaan rabaa guur baan rabaa buu leeyahay mid kamida gabdhihii asagoo arintii marka horeba aan si fiican lagu bilaabino ninkaan jacayl sax iyo hal qof inuu la sheekaysto ama hal gabar uu la sameeyo xiriir asagoon ba sameeynin iyo wuxuu gabagabadii waxa imaanaysa inuu ninkaan u dhaho diyaar baan markuu leeyahay asaga laftirkiisa shaqo fiican ma haysto waxa laga yaabaa Nairobi nolosheedu iska adag tahay inuu waxa dhaqaalaha uu haysto uu iska yaryahay gabadhi been buu u sheegaa marka wuxuu leeyahay waan kugu fillahay ana wax kastaba xalinaya gabadhi wuxuu leeyahay isjilciyo hadii waxa weeye wax kastaba okay dheh in jacayl buu marka hore ku beeraya gabadhii markay ogolaatay ninkii uu dajiyay hal qol iyo wax la mid uu dajinaya marka ugu horeysa oo gabadhii ay uur yeelato wuxuu leeyahay meeshaan isbitaalkeeda kama bixi karee hadii baby waa inaad Soomaaliya aadid gabadhii tigidka u jaranbo marka dhibaatada ugu weyn gabdhihii saasa loogu hayaa gabdhaha halkaan imaadana waxay isugu jiraan gabdha iska yimid oo iska soo wad burburka u yimid waxay ku jiraan qaar buufis u yimid way isku jiraan marka hadee dumarkii waxa way kalsoonidii yaa ka dhamaatay Nairobi hadaad fiirsana inta ugu badan gabdhaha waa garoob waa kuwa ilmo la hadaafaya waa kuwa maxay ahayd buufis hayo buufis la guursan la waa kuwa ragii aamini la de ragii inta aamintayna saasa midna maxay ahayd markii ugu horeyso uur yeelata Soomaaliya tigid loogu jaray midna waqtiba inta lagu mooday ba maxay ahayd meel cidla looga tagay marka dhibaatada gabdhaha haysata ragga mas'uulka ah gabdhaha waa masaakiinba waa qof qalbigeeda dumarku waa qof qalbigeeda wixii raba laga samaysan karo marka ana waxay ila tahay kulay in eed ugu weyn aan ragga u soo jeedinaya way jirtaa aniga kula hadlaayaba يعني dhacdooyinkaas kuwa la mid way igu dhaceen aniga waxaan ahaa dadkii meeshan buufiska u yimid ama dhoofka u yimid muddo badan waan jooga markii dambe adigu waqtiga reekayaan iska noqday laakiin waxa waaye buufis baan u imid anoo process ku jira oo maxay ahayd dhoof qalbigayga uu ku weyn yahay yaan haddana yaan guursaday ninkan guursanaa waa nin Soomaaliya ka yimid inay horta raggu ay been runta ka fogyihiin aan ku sheegayay markaan guursaday waxaan buufisaan ku jira halkaana dhowr 10 sano u jooga hadaad ku gali kartid soo gal welcome waxa dhacday guurkii ka bacda adiga markii sanadba intay ka soo wareeganin in la dhahay xamala guur lagaga diyaariyo soo bax hada jadwalka taas nooguma jirin aniga waxba maro process maro inta maro aniga mana iska la Kenya iyo wadanka u socotid anigana go'aankayga aan meeshan imid wuxuu ahaa inaan ama dibad sii aado ama aan meeshan ama horumar iyo ganacsi ka sameeyo sidii darteed qoyskayga aanu sidii ku burburay marka nolosha gabdho badan oo saas ay qabsatana way jiraan adigu waxa uu kulay u asal dhig inay raggu marka u horeysa ay sadaacad ku soo galeen dumarka
تكاد سؤال أي ودي شيء مدنا أنا عن وحي إلى تاي سنة كان مجبدا نيروبي كل رقم ما عن بقول كيف عشان ميد أو نفس ده أم بلوغ أمريكا رير هاي أيضا كارلس كتاب حاسدن شقاء يو إيشك مقولة بو إيشك رير يو نيني أفاريس دم شقكم ملان وايو إيشك دنيا ذا كلاك بدن أفنت ملنا marka ani ahaan waxa aad saar lahay inuu dhaqankaas u burburo aan hablaha waayo sheeg ayaga dib kasta ayaga u horeeyo waayo qoftan hadii adii ay noloshaada ay Carlos ka tahay adiina aad tahay nin wax kasta ninkla ugu baahan qoftan maantana ninkla waxa ugu baahan aan keli karin saas taradeed oo heerkaas ku burbura waayo sheeg meel oo sheeg nolol ay saalin man lagama yaabo inuu reerkaas uu sii dhismo كان يهانتي ساساديه لاي دمر كان نفتو دوا ايغو قيان بدين اي شيء كان رغواي شق افر عليه بنين كل تبان دو اود وفانت مالنا marka ayaga ahaantee dumarka xataa way qayaan badin waayo laga yaabaa in marka koowaad haasaa oo jira laga yaabaa in sheeg gabdhaha marka la shakiysanayso waxay ku leedahay xabada waan la socoto gabar kuni ay shoorisa haleen kala dhex baxdaa adii maska xanuunkaas marka uma adkaysi kartid marka adeer wafaanta malena waxa aniga kaliga ninkliga sheekadan ku ekaata fiican waa adiga qoftan hadda sheeka awar u sheegto aan gaay kala imaana asna sheeka kale oo sheegati ka bedel adii marka meesha forgada taabo hadalkaadi biri waxa lagu leeyahay orniya waxa ay adarto waxa hal idheesi wafaanta malena marka reerkiin u burburo habla ugu waan sanadkan jirana ma ahan ku wax lagu aamini kara xataa inkastoo gabdhaha Nairobi joogan dan ayaa keentay soo moogid danka keentana waxa bay reerkooda u maadeen inay wax u qabsan wax ka sameystaan dhalinyarada maanta adduunka joogtana waxay ku dhahan guur ayaa rabnaa ilaan gabadha dhalinyarada dan ayaa keentay Nairobi waxay rabtaa danteeda inay ku waxaysato ay ku sameysato asagana wuxuu rabaa inuu dantiisa ku faa'iido ku dhameysto way labada dhinac la isma fahmay dhanka hadaan fiigo aan fiiro dhanka horta aniga gabdhasan kuna horta aniga nimanka horta ma qayaano qayaani waxa uma soo jeedno way anagu waxaan leenahay dantaana ku fulantiin ma soo moogid dhanka xigtana nimankana ayaga horta dib waxay ay ku keeneen horta inay gabdhaha qayaanaan ee rabaan inay ku dangaaraan ee meeshooda ku gaaraan markan maxaa la sameeynaa dhalinyarada anigana 100 iyo 100 ay shukaansana waxay ku dhahaan aniga adig kaliya ku shukaansana qof kale ma shukaansano way dhalinyarada horta adduunka joogta hadda tan horta lama aamini karo way ayagana waxay leeyihiin gabdhaha lama aamini karo ayagana anagana waxa leeyahay lama aamini karo dhalinyarada dibka xigta waa midaas hadda sida ay tahay way inkastoo aniga gabdha maskiima aan ahnay oo aadana oo hadalii wiil ee dhaha wuxuu dhan 100 ku soo wacay baay macaan inaa kula soconaa rabna baay macaan soo jirta hayaha dhahaysaa maxaa dhahaysaa kale ma dhahaysid intuu ka booda xabad kale wadadku arkaa baay adaa maanta waa shidantahay caadi mid qurux leeyahay tahay hadda isku dhacsana maxaa ka qabtaa gabar waa ogtaa maskiin qalbiga ka jiilacsan tahay sidii haya ku dhahaysaa hadda adduunka hadda la joogo horta dhibka waxa ka socda dhanka dhalinyarada waay diwaay anaga inay wax ay naga sheegtaan ay dhahan gabdhaha Nairobi joogan lama aamini karo horta taas way dib badan tahay inay aniga horta dhanka ay naga eedayaan soo moogtiin dhalinyarada wayna latay say kula latay aniga nala dhashan soo moogid ina horta gabar walaasha oo bari kama la yeeli karo ina aniga na yeesho horta waa laga fiican yahay ayadana waxay leedahay meel ay ku gaartay way hal qof haday ku ekaan leed maanta u dhiila heblay bari wax kasta inaan diyaarsanaa u baahanahay wax kasta dhagdhaga ka dhiganaa because goor iska la jirsan hay way waa ka dhiganayna ilaa asaga qayaanaha duu socdo maxaa la sameeynaya wax la sameeynaa ma lahan inkastoo gabar wax kasta ay u baahan tahay waxay la dantaada ku gaaro wax kasta ku fulo ilaa Nairobi dana keento soo moogid dantaa sheeganayna waa intaas aniga dhalinyarada dibka iska daayaan ee gabdhaha haddii aan soo gudo galo ama arintan aan ka hadlo والله هرت دتك شنطة فرد بالآنك إسكمد معها رجع قار حنو ويكون جيران قار في عنو ويكون جيران لكن هذا ما جارة تيجي عن كهذا السيد اللي هو بدنيه هرت واسع وشيك تدل يرادا وبديدود وحاوى وإسكابلو لكن وحياله لو بيحكر أما وحياله سبب دمر كأو بدن هذا كل دمر كصار يعني marka tusaale ahaan hadda si u badan yahay duwiilka daacad ba iska noqdo oo damco inuu reer sameesto oo intuu reer sameeyo uu damco inuu reer iska yeesho
kolley brograamada ugu badan ee asaga uu ku dhaafayo ayadaa ku furaysa maama cadar oo ku nool xaafadda Isli ee magaalada Nairobi waxa ay u soo joogsay waayo badan dhismaha reeraha maanta iyo reerihii hore iyadoo aan wax ka weydiiyay halka ay dhibtu ka taagan tahay oo gabdhaha iyo wiilashu ay isla garanayeen wiilashina waa aragnaa gabdhihiina waa aragnaa cilad u dhaxaysa hadda inay isguursan waayaan ma garanayno haddana waxaan u arkaa iimaan la'aan inay jirto sababtu tahay gabadhii waxaan guursadaan waayey wiilkiina waxaan guursadaan waayey waa iimaan la'aan baa la dhihi karaa sababtoo dad xunna way jiraan dad wanaagsanna way jiraan oo wiilashuna ma wada xumo gabdhuhuna ma wada xumo marka labaad waxaa jira annagu Soomaali haddaan nahay culture baan leenahay diinta markii laga soo macnaha dhaqan ahaan wax culture oo baan lahaan jirnay dhaqankiina Soomaalidu way ka tageen oo waxa weeyaan waxaa sababaya dhaqankeenu ma ahayn vaasuqan tirada badan annagoo diin wax naga reebaysa oo badan aysan jirin baa waxaa jiri jirtay wiilka Soomaaliga inuu habeenkii 50 kilomitir ama 30 kilomitir lugeeyo gabar u shukaansi tago markuu geelisii argiisa soo xareysto aabaheedii hooyadeeda xaadira oo u tago meel gooniyo uu kala fariisto ilaa waa uu ka bariyo oo gabadha halka ku shukaansado wax macnaha faraxumayna iyo wax faasuqa ayaguna ma sameyn jirin waalidkoodna inaysan sameeyeen way ku kalsoonaayeen oo marnaba wax saqajaan ah waalidkuna tuunka ma qabin labadooduna kalsooni isku qabeen mana ay sameyn jirin hadda oo maaragtay diintu ka badan tahay waqtigaas diintii la haystay yaa waxaad moodaa faasuqa iyo iimaan la'aanta iyo balwada iyo saqajaanimadu inay badan tahay marka kolley anigu hadda dhalinyaro maahiyo maanta dhalinyarada kuma dhex jiro oo waxa ay sameeyaan oo xaqiiqantada ay ku kala baqayaan kolley ayaga og laakiin waxaan dhihi lahaa dhalinyarada iimaanka Allah ku sugo hana is aamineen maxaan ku raahdaayay hana is guursadeen sababtoo tahay haddaad mid guursato oo laba guursato kolley mid fiican waad heli doontaa waxaan kaloo ku waanin lahaa gabdhaha Soomaaliyeed even waxaa jira gabar wanaagsan gabdho badan oo wanaagsan haddana friends la ah oo laga yaabo ama daris inay la tahay ama family tribe la tahay ama si walba ku baratee gabdho aan fiicnayn oo markaas waswaas laga qabo waxaan kaloo dhihi lahaa gabdhaha wanaagsani ha ka hareen saaxiibka xun wallahi waxaad moodaaba nolosha maanta ah inay noloshii hore ay ka fiican tahay sababtu tahay Soomaalidu markii hore waxaanu ka soo jirnaa dad reemiyi ah miyiguna waa iska dhibaato badan yahay maanta dadkii reemiyiga ah baa reemagaal ah ma fahamtay guri maanta macnaha maaragtay dhibaatada baa kalifaysa la leeyahay way iska yar tahay waxaan dhihi lahaaba ilbaxnimada waxa lagu sheegayo oo hadda la gaaray baaba dhibaatada iyo dulliga iyo falxumada keentay inay hadda dulli ay arrimuhu hadda maxaan ku raahdaa dhaqankii laga tagay oo diintii laga tagay oo alla cabsigii yaraaday waxaad ku ogaanaysaa ninka hadda heesta istuur inta dadkii soo bixiyay kun qof ay jajabaysa barbar irid yacni maxaa hadda barbar u dhac qof la yiri oo istuurahaya maxaa macnaha ku jira lama dhihi karo sababtu tahay qof waarid inuu ka dambeeyo og oo fakaraya oo waaridba ka fakarayo waarid baa ka dambeeya leh reerkiisa ma dhaqan waayo qof reerkiisa iyo dantiisa yaqaana yaa waaridkana wuxuu tara markaad waari adigu aad naftaada iyo maaragtay aad naftaada safgaraysid oo reerkaaga iyo ilmahaaga aad wax ugu taalo ayaad waaridkana wuxuu tari kartaa laakiin markaad jirdinada inta fariisatid maaragtay saaxiib xun samaysatid oo jeegada xiiratid oo maaragtay waaridna wax uguma taalid reerkaagina wax uguma taalid taasaan u arkaa anigu lama dhihi karo taas qofka horta anigu waxaan u arkaa qofka masayrka badan oo waswaaska leh asagu inuu faasiq yahay sababtoo qofku markuu asagu daacad yahay oo ilaahay dartu u shaqo tago waxa la yiraahdaa muumin laba god lagama wada qaniino marka qof hadaad ku qaldanto oo aad qof ku lugo'do qof labaad kuma lugo'aysid waa xaqiiqatan taas marka waxaan dhihi lahaa dadka dhalinyaradu waxa xasileen faasiqana ha iska daayeen hana guursadeen sida ilaahay faray guurka ha badiyaan tuhunkana hadaayeen qofka kale aamin laana asaga zaaniye zaaninimada iska daay Allah agtaa u noqdo eedeymaha iyo dhaliilaha ay dhalinyarada labada dhinac ay isku hayaan haddana ma jirtaa wax xal u noqon kara caqabadaha haysta oo ay hayaan si looga gudbo dhibta ka dhex taagan dhalinyarada isla markaana ay kaga baxaan nolosha adag ee kelinimada marka xalka wuxuu yahay oo loo gudbi karaa hadii aan soo dhaadhacno xalka waxa waaye dhalinyarada hadii shaqo helaan oo shaqo abuur loo sameeyo ama dhanka waxbarashada laga dhiso
dhallinyarada markaas waxaa waa ninka qoyskiisa uu ku filaanaya hadduu subaxdii shaqo aadayo oo uu shaqo soo samaynayo oo intuu caawa soo helo wuu cuni karaa qofka waxaa la dhahay qofka wixii hal qof ku filnaa la dhaha laba qof way ku filan yihiin marka halkii nin oo shaqo tagay saaka waxaa laga argaa inuu waxba soo ahlinbo nin saaka waxba aan soo helin caawa soo hida asagoo keligiisa ma u malaynaya marka qof oo xaaskiisa inay marka ay dhibaatadaas ay la qaybsan karto marka dhibaatada shaqalaanna way jirtaa xogaha in laysku moodana way jirtaa oo la dhaho warniyow aniga walaalahay baa layn waxba ii soo xaraynaya niyow haddaan ishabaysanayno tartiib yah oo diyaar tahay waa ishabaysanaynaa after 2 bil ka bacdi waxaa la dhahaa warniyow goyniyow waxba mahaysinniyow eberaatee qamaamaatee أنا حالها waxaan ka dhigi lahaa dee gabdhuhu haddaayaan lacagta dumar ragga ku xakimayaan oo ay dhahayaan dee boqolka guurka ah inkasta uu nolosha qofka bilaadanka uu maareyn kara hal qof uu guriga ku wada dhisay labada qofba samaha saas waxaan jeclaan lahaa raggana ay dumarka xushmeeyaan dumarkuna ay ragga xushmaan oo sida nolosha lagu wada maareyn lahaa isku la fahmo gabdhaha horta ana horta wiilish waxaan dhilahay gabdhaha hadii xabig u haynin horta waxbaan khiyaanna waa walaasha oo kale aan naftii ma jeclay gabdhaha in la khiyaano qofkii awoodi karo inuu guursado ha guursado mid kale markii la guursanayo waa gabadha ciddo in la tago oo macna cidiina sarkaan oo laba reer sarkaan kadib wiilka hadduu wax u haysto oo cidiisa u dhaqan karo uu guursado hadduu waxba u weyn waxba natiisu khiyaan gabadhin uu khiyaan because fadhow daas guursatiin ilma iimaanayo meesha marka loo hore la galaa moogido deena cuniga adii dhashay meel culimo tii kartid wax kaas u baahan akhris u baahanay wax barasho u baahanay isbitaal u baahanay soo marka waxa dhilahay taladii ahaan qofka hadduu waxba awoodi karin haba iska dhaafo guur ha shaqeysto intuu wax ka wadaayo xalku wuxuu noqon karaa inay raggu qayaanada ka dhaafaan dumarka wiilasha yaryarka ah oo shaatiyo soo cadaysana inay gabdhaha beenta ka daayaan gabdhaha masaakiinta ah gabdhaha Soomaali waa gabdho sharaf leh mid duurka gasho aad maqlaysana waa mid duruuf iyo dan ay u geysay oo meesha nolosheeda iyo dhibaatadeeda ay kulay u adkeysan weyday laakiin ragga Soomaaliyeed waxaan dhihi karaa xalku wuxuu ku imaan karaa wiilkii gabar guursanayana inuu runta u sheego oo shanta gabdhood oo la isku wada iyo gabdhaha beenta loo wada sheego in la iska daayo oo xiriirka runta laga sheego oo ninkan hadduu meeshan gabadha ku dhaqi karin oo uu hadhow aniga haddii adiga ogolaato xag dhaqankeena wuxuu noqonayaa wadankeeni oo gabadha uu run ku soo galo nimanka lacagta la orday beenta oo gabdhaha qariyo ku hayana waxaan u sheegayaa ilaahay baa afar u baneeyay kii raba inuu gabar Soomaaliyeed oo walaashiisa guursado sharafa ku guursado oo raganimadiisa ku guursado halkaas degsado tanna asaga qaba ha isgarab degsado haddii kale maxay u baqayaan tiisi ha iskala joogo ani kulay xalka saas oo arkaa ragga dhibaatada gabdhaha ka daayaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii wacyiga bulshada ee telefishinka Universal barnaamijku wuxuu idin kaga imaanaya magaalada Nairobi waxaana idila socodsiinaya anigoo ah Cabdi Wali Xuseen Tawakkal